asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu soo dhawaada dhammaan walaalaha zoomka ku jira caawa oo kale waa habeenkii aynu qabsan jirnay xisadii ku saabsanayd sidee qofku waxbarashadiisa u horumarin karaa sidee noloshaada wax uga bedeli karaysaa sidee u baran kartaa xirfad aad ku shaqaysatid ayaynu caawa kale ku qaadaa dhiganaa sidoo kale caawa kale waxaynu u hambaliyeynaa ardayda wiigan levelada waxbarasho gudbay sidoo kale chance waxaan siinaa ardaygii su-aal qaba ama walaalkii su-aal qaba inaan uga jawaabno insha allah marka dhammaantiin soo dhawaada dad nala joogto dhanka zoomka dad facebook naga daawanaysid iyo dad youtube naga daawanaysid dhammaan soo dhawaada insha allah qaaladana asxaabta kale loo sii shargaray si ay uga faa'iidaystaan xisadda qaybta hore ayaan toos markii u gudageli doonaa saa waqtiga nagu ilaaliyo waxaynu marka ugu horeysaa u hambaliyeyn doonaa ardayda wiigan levelada waxbarasho ka gudbay ee dadaalay si ay inagoo dhan shidaal inagu noqoto macallimiintu casharada cusub usoo duubaan ardayda ay u tartamaan oo ay u dadaalaan ardaygii horey level usoo galay uu meesha uga sii dhaqaaqo kuwo cusub ay ugu daydaan ayaynu soo qaadanaa insha allah ka arday kastoo shaashadda aad ka aragtaan waxaan ka codsanaya magaciisa inaad hoos kusoo qortaan oo ugu soo hambaliyeysaan si uu markaa dhiirigelin ardaygaasna ay ugu noqoto ardayga ugu horreeyaan soo qaadanayno xiisaddeena kusoo qaadanayno waxay noqonaysaa ardayda le ikraan khadar oo koorska ingiliishka qaybta basiga ah baratay oona ku sugan magaalada laascaanood maasha allah hambalyo qaybta chatka ugu soo qor waa ardayda dhanka barata dhanka iyo luqadda ingiliishka marka maasha allah ku dhiirigeli bilis and bilis oo websitekeena sahal software ayaa laga bartaa cilmigaas ingiliishka iyo qaybo kaloo arki doonto insha allah fadlan hambalyada ha kala bakhaylin gacantana fududayso hambalyo maasha allah keliya usoo qor shidaal bay u tahay ardaygaas waxaa laga yaaba waalidkii inuu la joogo ama asxaabtiisa la joogaan dhiirigeli insha allah ardayda labaad waxaa leedahay xamda khadar iyana waa basic english waxay joogtaa laascaanood maasha allah hambalya dheh waa labada gabdhood waa walaalo sidaad magaca ka arkaysid isku meelna way joogaan labadaba hambalyaan leeyahay ardayda saddexaadna waxaa leedahay xanaan khadar iyana waa basic english waxay joogtaa laascaanood saddex gabdhoodba maasha allah lagu dhiirigeliyo su-aal la isweydiiyo adiga walaalada ma kula baranaya wax kula baranayaan mise keligaa wax baranaya halkaana waxa weeye dhiirigelin iyo shidaal baynu ka qaadan doonaa insha allah waayahay dhanka waxaynu aadi doonaa dhanka forexiska waxaa usoo horeeya ardayga u hambalyanayno caawa waxaa la yihahdaa cabdirasaaq mustafa cabdirasaaq wuxuu isna dhameeyey basic forexiska forexku bilaabay waa basiciisu leefsiiyey mustafe wuxuu ku sugay magaalada hargeysa maasha allah hambalyo ku dhiirigeli ha kala bakil insha allah cilmiga halka laga baranayo forexkana waa xagee waa sahal software weeyaan marka maasha allah hambalyada has qabsato bilis ha kala bakayl insha allah arday kastan soo qoro haddaad facebook ga daawanaysa ama youtube ama zoomkaba hala bakaylnimada iska daa si adigana beri lagu hambaliyeeyo ardayga labaadaan soo qaadanayo waa amiin maxmed oo isaguna qeybta labaad ee technical analyst loo yaqaano ee suuqa forex kasoo gudbay isaguna wuxuu ku sugaya magaalada hargeysa labadan arday waxay ku jiraan xagee hargeysa maasha allah ku dhiirigeli bilis ardayga saddexaadaan soo qaadanayo waa cali jimcaale waa isna forexka weeyaan waa intermediate level waa levelka saddexaad ee dhanka forexka weeyaan level 3 weeyaan marka maasha allah ku dhiirigeli wuxuu joogaa waddanka kenya maasha allah hambali ku dhiirigeli ardayda maanta waa badan yihiin ardayga afraadaan soo qaadanayno waa levelka shanaad ee dhanka forexka ayuu kasoo gudbay waa level 5 ardayda sanka isku hayaan waa ftm free trial baa ku qoran marka waa level 5 weeyaan waa level 5 maasha allah ku dhiirigeli dalmar axmed wuxuu ku sugan yahay magaalada boram uu ku sugan yahay maasha allah hambalyo ku dhiirigeli bilis ardayga ku xigaan soo qaadanaya waa maxamed xuseen oo isaguna wuxuu kasoo gudbay suuqa forexka waa technical analyst levelka labaad weeyaan wuxuuna ku sugan yahay waddanka belgium waa qaaradda yurub weeyaan maasha allah ku dhiirigeli ardayda daafaha caalamka ay kala joogtaa fadlan dhiirigelin fiican u samee ardaygaas halkan waxaan ka baxaya dhanka forexka dhanka IT ga iyo teknolojiyada computerka waxaan soo qaadanaya ardayda u horeysa waxaa la nimco siciid nimco dabcan way cusub tahay barnaamijkii ugu horreeyay windowska la yihahdo ayayna ka gudbaysaa weekan waxaana joogtaa waddanka zambia maasha allah hambalyo ku dhiirigeli bilis aan bilis chatka shaashadda hays qabsato hambalyo ku dhiirigeli arday kastana ducada u raac insha allah ardayga ku xigaan soo qaadanayo waa ardayga la deeq cali wuxuu ka gudbayaa barnaamijka loo yaqaan excelka wuxuuna ku sugaya magaalada laascaanood maasha allah hambalyo ku dhiirigeli deeq cali fadlan dhiirigelin fiican u samee ardayda ku xigta farxid jaamac waxay ku gudbaysaa barnaamijka accesska loo yaqaano waxay joogtaa diri dhaba maasha allah hambalyo ku dhiirigeli fadlan arday kasta dee waxa way gacanta kala baqayn ardayda hambalyeynaysa hadda zoomka hadaan eego injineer deeq waa u jeedaa maasha allah hambalyihiisu isagu arday kasta wuu hambalyeynayaa waxaan kaloo arkaa cali xasan sidoo kale waxaan u jeedaa ruur cabdi yes ha saa u wada maasha allah hambalyo ha is qabsato ha kala bakaylin please and please bakaylnimada iska daa cabdiraxmaan muusaan isna u jeedaa ha maasha allah hambalya dheh maasha allah hambalya dheh hala bakaylin please arday badan waxa weeye arday dhiirigelinsi haddayna ardayga saa u dhiirigelino ardayda way soconayaan wiiga dambana arday kale arkanaa badan marka waxaa laga yaaba saaxiibadood faamiligooda la jooga baa dhici karta ardayga magaciisa halka marka laga arkay chatku ha is qabsado insha allah
chat kaas qabsado. farxiyo waxaan ku xijinaynaa safiya maxamuud oo iyana barnaamijka koowaad ee windows ka gudubtay oo ku sugan galdogob maasha allah hambalyo ku dhiirigeli insha allah ku dhiirigeli. waxaan soo qaadanay mano cabdisalaan oo iyana ku sugan magaalada laascaanood iyana barnaamijka work ay kasoo gudubtay wigan. waxa weeye waa sankaa laysku haya ardayba arday buu tiigsanaya ardayba arday buu tiigsanaya maasha allah yaan la kala dheeraan. waaye yaxye maxamed baan soo qaadanaya isaguna windows kasoo gudbay oo ku sugan magaalada leer dhuusamareeb maasha allah hambali ayaan leeyahay yaxye maxamed hambalyadan kala baqayn. waxaan ku xijinaynaa cabdilaahi xasan oo isna barnaamijka word kasoo gudbay oo ku sugan waddanka UK gaar ahaan magaalada London maasha allah hambalyo ku dhiirigeli hambalyo ku dhiirigeli hambalyo ku dhiirigeli. waxaan ku xigaan soo qaadan ardayga maxamed mahad oo kasoo gudbay barnaamijka desktopka kuibu desktop uu dhameeyey wuxuu ku sugan Zambia. ardaygaas si gaara isaga waxa weeye hal mara chatka 77 soo qora ilaa haddeerto rikoorka isaga ayaa hogaaminaya sanadka 2024 ardayda tartamaysa 2024 isaga hogaaminaya maasha allah hambalyo ku dhiirigeli please maasha allah chatka is qabsado maxamed mahad wiig kasta ilaa markuu akademiyada kusoo biiray ama saalis kusoo biiray ilaa ay haddeerto wiig kasta hal barnaamij ku gudbiyey. haddaad muuqaalada youtube-ka tagtid waa soo arkaysaa fadlan isaga si gaara u dul istaagayaa waa ardayga arday badan ay tiigsanayaan ay leeyihiin halkaa maxamed baan rabnaa inaan gaarno ama dhaafno fadlan maasha allah hambalyo ku dhiirigeli insha allah. ardayga ku xiga waxaa cabdiraxmaan xirsi cabdiraxmaan wuxuu kasoo gudbaysana basic network wuxuuna ku sugan yahay magaalada London maasha allah hambalyo ku dhiirigeli. waxaa ku xiga ardayga lajaa maxamuud oo isaguna basic network kasoo gudbay oo magaalada Orbogas ku sugan isagana maasha allah hambalyo ku dhiirigeli. halkaasaan kaga baxayaa markaa hambaliyada iyo ducada hal isu raacaya haddaba mar kale chat ka is qabsado waxaad ii soo qortaa 11111 insha allah. ya dhowr iyo 10 arday ayaa wiigan gudubtay maasha allah saasaan rabaa markaasa waxaan odhan karaa macallimiinta iyo timamka sahal software casharro cusub soo duuba ardayda ha la caawiyo update ha la sameeyo hawshaa kala socoto markaas odhan markay ardayda saa qulqulayso soo wajid arday kastaan waxaan usii diyaarinaynaa koorsooyinkii iyagoo isku xiga iyagoo weliba fudud oo lasii fudeeyey kooras kastana practicalkiisa arday helaya iyo caawin joogta arday kasta u helaya. waya intaa haddaan kaga gudbo markaa intaas zoomka waxaa ku jira haddaba arday cusub baa laga yaaba inay ku jirto sidoo kale ardayda laftigooda kuwii horey ama dhawaan kusoo biiray waa inaan mar kasta ugu celcelinaa waddada waxbarasho ay marayaan halka loo socdo iyo halkay u socdaan iyo halka hadda ay marayaan si arday kasta u yidhahdo maxaa isagu isula xisaabtamo wiigan maxaa i qabsoomay inuu yidhahdo wiigan maxaa i qabsoomay wiigii ka horreey maxaa i qabsoomay maanta maxaan qabtay ogow wax walba ama qof kastoo dunidan guulaystay waxa uu ku dadaalo weeyaan waa dadaal qofka hadduu dadaal la yimaado samir iyo adkaysina uu ku daro qofkaasi waa guulaystaa. waxa laga rabaa kale waxa weeyaan waa wixii inaad joogtayn maaha xiisayn inaad intaa wax bilowdid aad marka ka tagtid maaha waa inaad waxa joogtaysaa waxa waad gaaraysaa markaa. okay arday kastoo cusub haddaba muuqaalka daawanaya iyo ardayda nala joogtay waxaan rabaa systemka waxbarasho inaan u sharaxo marka ugu horeysa kusoo dhawaada hoyga waxbarashada sahal software websiteka wax laga barto waxaa la yidhahdaa sahalsoftware.com waa websitekaas ardaydan la hadlayey ama hadda aan dhiirigelinayey ama arday kasoo raba inagu soo biro websitekaas ayuu gelayaa kadibna websitekaas wuxuu markiiba arki doonaa halkan waxaa ku qoran baro xirfad aad ku shaqaysan kartid weliba xirfadahan u badan waxa weeye qofku isagoo gurigiisa jooga ayuu ka shaqayn karaya qaab online ah ayuu ku shaqayn karaya. waxaan kula wadaagi doonaa xirfado badan ama skills badan oo aad kala dooranaysid inkastoon kula talaya ardaygu inuu intaba uu barto haddana ha dhowto ardayga midda markaa u jececsanaata ayaa ka badan oo ku shaqaysan karaya mustaqbalkiisana horumar ku gaari karaya isagoo weliba gurigiisa jooga oo aan xafiis u shaqo tegin. websiteka markaa sahalsoftware.com waad iska diiwaangelin kartaa laakiin markaad diiwaangelisid koorska dooratid fadlan waa inaad nala soo xidhiidhaa si guruubada aan hayno lagugu daro oo lagula socdo oo lagu caawiyo. haddaa websiteka iska diiwaangelisid nala soo xidhin waxaa laga yaabaa markaa in cid ku haga aad weydid ama aad arday dadaal iyo wixii yaalla barto dee ku shaqa tagaana wuu jiraa arday kanada jabayana wuu jiraya laakiin marka lagu caawinayo way ka duwan tahay sooma marka nala socon insha allah. koorsooyinku say isugu xigaan baan haddaba ku bari doonaa ila soco. koorska ugu horreeya ardayow ee aad websiteka sahalsoftware.com ka baranaysid ee aan ku leeyahay dooro haddaad rabtid inaad meel ka gaadhid teknolojiyadda oo koorska loo yaqaano basic computer weeyaan. basic computerku waxyaabaha lagu barayo waa waxyaabaha asaasiga computerku ah yacni qofku inuu barto sidee loo isticmaalaa computerka sidee loo isticmaalaa waa qofku inuu barto. barnaamijyada aad ku baranayso waxaa ka mid ah barnaamijka hadda shaashada arday badan ugu hambaleynayey oo ugu horreeya windowska loo yaqaano waxaa ku xiga barnaamijka loo yaqaano wordka waxaa ku xiga barnaamijka loo yaqaano excelka
waxaa ku xiga accesska, waxaa ku xiga powerpoint. shantaa program qofku markuu barto wax badan baa u kala baxaya. teknolojiyaddu waxay tahay concept fiican buu ka qaadanaya. windowska wuxuu sharaxaa sida computerka loo isticmaalo. afartan barnaamijka kalena waxay kaa caawinayaan, waxaa la isku yidhahdaa office ama microsoft office. waxay kaa caawinayaan maxay? sidee loogu shaqeeyaa barnaamijyada xafiisyada. يعني marka xafiis ka shaqo bilaabaysid, barnaamijyada loo baahan yahay lagu shaqeeyo ayaad baranaysaa. wordka oo kale waa wax lagu qoro dokumentiyada, excelku waa xisaabaadkii, accessku waa databasedii, powerpoint waa naqshadintii iyo qurxintii weeyaan. intaa markuu ardaygu soo qaato basic computer ee leedahay, wuxuu usoo gudbiyaa ardaygu qaybta labaad ama kooraska labaad ee loo yaqaano troubleshooting ama A plus, ama waxaa loogu yeedhaaba hardware. kooraskan wuxuu ku barayaa sidee computerka loo cila saaraa. horta qalab computerka maxay kala yihiin? computerka dhaladan iyo muuskan iyo keyboardkan baad garaacdahay, maxaa gudaha ku jira, see wax u dhacayaan. conceptigaas oo dhan ayaa lagu bari doonaa kooraskaas. qalabka hardwareka o dhan baa lagu bari doonaa, iyo weliba qaar badan oo softwareka ka mid a ayaad baran doontaa. qaybtan xirfaddan markaad baratid, kambaniyada ugu shaqo tagi karaysaa, adiguna iskaa xafiis oo u furan kartaa, waad ku shaqaysan karaysaa oo adaa shaqa abuur samaysan karaya. yani si kala down dhigo, dabcan meeshaad joogtay waa taqaanaa dad kombiyuutarada sameeya soma. dadkaas waxay barteen xirfaddan ay barteen, troubleshootingka loo yaqaano ama hardware. simple waa intaas. xirfadda saddexaad aan soo qaadanayo ardayow, waad baran karta adoo guriga jooga, waa xirfadda loo yaqaano accounting software ama quickbooka ugu caansan. barnaamijyadan waad baran karaysaa, waa easy. barnaamijyadan waxay kaa caawinaya iyaguna waa sidaad u noqon lahayd qof xisaabiye ah. yani u fiirso, xisaabiye ugu shaqo tegi kartid shirkadaha, odhan karta waxaan ahay ama waxaan aqaanaa sida shirkadaha xisaabta loogu xidho xisaab xidh. dabcan haddaad adigu ganacsi leedahayna ama meherad yar leedahayna, adiga ayaaba u baahan inaad baratid accountingka, si gaar barnaamijka loo yaqaano quickbooka. adiga ayaaba u baahan inaad baratid, waayo xilligan wuxuu ka mid yahay barnaamijyada lagu jecel yahay. quickbooku softwarada la isticmaalo ayuu ka mid yahay ee wax lagu xisaabtado. waxaa jira barnaamijyo kale koorska afraad oo ardaygan ku barno oo loo yaqaano graphic design. ardayo graphic designka waxaa laga wadaa wax kale maaha, waa taqaana meel kasta aragtaa, waa dadka sawirada noocaan ama waxyaabaha noocaan naqshadeeyo weeyaan graphic design. yani haddaad maqasho sagal chat, asli chat, horyaal chat, sign chat, soo ma jeedid? chatkaas oo dhan waxay daabacaan boorada, si waxaas cidda samaysa ayaa waxaa loo yaqaanaa graphic design ka yaqaana. weliba kuwaas waxaa weye imageka ama qaybta sawirada ay ku takhasusaan sida loo sameeyo. laakiin dad badan waxaa jira iyaguna videoyada sida loo edit gareey yaqaan ama sida loo jarjaro videoyada yaqaana. yani cod la sugan keeniyo, video la jarjarayo, yani tviyada, wargeysyada, yani dad badan ba xirfadda ku shaqayso. ganacsiyada xitaa u baahan, marka ganacsi la xaysiinayo wuxuu u baahan yahay waxyaabaha uu qabtay, wuxuu ka shaqeyn la video lasoo ururiyo, la sugan keeno, la qurxiyo, waxaas u baahan yahay. marka waa xirfad la barto iskeed yar loogu shaqayso, qofku xor ku noqon karo, ku shaqaysan karo weeyaan, oo isagoo gurigiis jooga ayuu ku shaqaysan karaa haddii uu siday tahay uu barto xirfaddaas. xirfadda ku xigta ardayga waxaa loo yaqaanaa ila soco, waan hor ordaya ama waa boobisiinaya ila soco, si aan waqtiga aan kugu ilaaliyo. wixii markaa su-aal aad qabtid adaa calaamadsanaya, dib baad iga weydiinaysaa insha allah. ama qofkii liidarkii macallinkii nuu kaa soo casumay zoom kusoo diray ayaa dib u weydiin kartaa si noogu kaa soo xidho. wax kasoo baahanta inaad si qoto dheer u fahantid inta aadan naga mid noqon. okay, networking muxuu? networku meel haddaan kaga soo qaado, internetka ku xasuuso. haddii internetka maanta kaa xumaado, waxaad wacaysaa shirkad sooma, shirkad baad la hadlaysaa sooma, shirkaddaas cid bay kuu diraysaa. marka ciddaas samaynaysaa ee ku imaanaysaa ama shirkaddaas cidda ka shaqaynaysaa ayaa waxay taqaanaa xirfadda loo yaqaano networkingka ama isgaarsiinta ama telecommunicationka. magacyo badan baa loogu yeedha. network waa mawduucyo aad u ballaaran, isma yaqaana isaga laftigiisu. qofkuna meel kamid a ayuu hadhow ku takhasusaya, laakiin conceptiga network oo dhan ayaan ku bari doonaa haddii ilaahay qadaro. waxa uu yahay network isugu shaqeeyo iyo inta u kala baxo ayaan si fiican kuu sii doonaa, waddada si fiican lacagta loogu saari doonaa. adigaa markaa xaggaa aragtid aadi doonaa. haddaad xaggaa iyo cyber security aadaysid, haddaad aadaysid xaggaa iyo networka caadiga ah, haddaad aadaysid xaggaa iyo cloudinka iyo computerka, cloud computerka iyo daruuraha, adaa kala dooran doona. waa mawduuc aad u ballaaran oo waxa weye keligii haddaan dhaho waan sharaxaya, saacado badan buu qaadan karayaa. keligii haddaan dhaho waan sharaxaya. xirfadda lixaad waxaan u dhaqaanaa web design, sidee loo sameeyaa websaydyada waxay ka mid yihiin waxyaabaha maanta aan shaqaba lagu waayin haddii qofku uu yaqaano wax xirfaddaas web design. waayo dunida oo dhan waxa weeye qof kasta wuxuu u baahan yahay maanta in website uu leeyahay, uu ku soo bandhigo wuxuu isagu hayo ama wuxuu ka shaqeeyo ama wuxuu yaqaano, buu qof kasta u baahan yahay. marka website, kambaniyadu waxa laga yaabaa inay 5 4 6 website ay leeyihiin, kambanigu leeyahay, oo department kasta website gaar ah u leeyahay dhici karta. marka web design tusaale waxaa kugu filan websiteka sahalsoftware.com soo booqo. kaas muxuu yahay? waa website weeyaan, waa website. this is website. facebook.com waa maxay? waa website. youtube muxuu yahay? waa website.
shay kasta oo waxa weye .com ama .net xagga dambe ka raaco oo maanta la booqanayo waxa weeye waa website. marka xirfadaasi barasha u baahan tahay. waxaan annaga noo tahay galaaska lixaad baan inta badan number 6 ayay noogu calaamadsan tahay xilligan xirfadaasi ama kooraskaasi web designka loo yaqaano. waayo marka laga hadlayo web designka, marka luqadaha lagu sameeyo waxaa ugu caansan luqadda loo yaqaano wordpresska ayaa ugu caansan. luqadaas ugu caansan oo waxa weeye waxaa la yidhahdaa boqolkiiba 40 ka badan websaytyada dunida waxay ku samaysan yihiin wordpress baa la yidhahdaa. wordpress waa wordkii barnaamijkii wordkii hadda aan sharaxayo basic computer kusoo baratay iyo xagga dambe press ama news xagga dambe laga raaciyay oo la isku yidhahdo. marka waa software ama website la sameeyey qola samaysay oo ay u diyaarisay qof kastoo rabo inuu website sameeyo inuu iyaga dhexdooda ka dhex samaysan karo website-kii uu rabo. marka wordpress baa la yidhahdaa. waxa weeye barnaamijyada la isticmaalo ka ugu caansan buu ka mid yahay wordpressku ee lagu sameeyo website-yada. waayo waxaa jira course toddobaad oo aan u naqaano oo la yidhahdo programming language. course-kan isaga ayaa laba loo sii qaybiyaa programming language-ka. course-kan waxa weeye oo qofku siduu u samayn lahaa laftigiisu oo website-yada marka la samaynayo kii haddaan sharaxayay waxaan soo qaatay wordpress. wordpresska marka lagu samaynayo waa yani waxaa la yidhahdaa qofkaas wuxuu isticmaalayaa drag and drop wax la yidhahdo ama uu soo jeediyaa yani mouse buu isticmaalayaa inta badan yani coding ama wax adag qori maayo oo wax aad u fudud weeyaan. laakiin marka laga hadlayo programming language-ka ama codingka marka laga hadlayo website-kii baa la samaynayaa ama application baa la samaynayaa laakiin code ayaa la qoraya. xirfaddan waa xirfadda ugu qaalisan weeyaan ama aan odhan karo xilligan way ugu muhiimsan tahay qofku inuu barto oo xirfadaha kaloo dhan tan ayaa ugu khatarsan ama ugu adag baa la odhan karaa uguna fursado badan. laakiin tacab badan bay qofka doonaysaa marka uu rabo inuu xirfaddan barto xaqiiqatan. ardaygan waxaan kula talaya inuu xirfadaha soo wada maro. ardayda qaar dee network bay ku shaqo tagi karaan xaggaasi aadi karaan. qaar baa xagga iyo accounting iska aadi karaya. qaar baa hardware ku taqasus qofku wuxuu rabo ku taqasus karaya. laakiin qofka xirfadda soo aadayahay tacab badan bay ka doonaysaa xirfaddan. qofka marka hadduu codingka barto qofkaasi waa qof yani wax soo saari karaya, wax cusub oran karaya, wax aan jirin bilaabi karaya. tusaale waxaa kugu filan qolada iskale youtube-ka oo kale. youtube-ka fursad dunida ka bannaan bay arkeen waxay sameeyeen youtube.com. waa artay maanta oo dhan waxa weeye youtube baad ku jirtaa soo ma. google-ka oo kale, qolada iskale facebook oo kale soo ma jeed, qolada iskale twitterka oo kale. dad u fakera wey fursado jira eegteen way sameeyeen. dadkaas maxay yaqaanaan? waxay yaqaanaan codingka waxa sida koorka loo qoro ama computerka sida loola shaqaysto ayay yaqaanaan. dabeedna qofku marka wix baahidii jirta ayuu daraasinaya dabeedna wuu samaynaya. marka waa meelaha ugu badan ee dunida lacagta ugu weyn lagu qaato ayay ka mid tahay xirfadda codingka iyo xirfadda loo yaqaano network engineering ama cyber security. xirfadahaas iyagu laftigooda kama dhacaan. okay xirfaddan marka codingka waxaa loo qaybiyaa laba qaybood ardayo. qayb waxaa la yidhahdaa front end, qaybna waxaa la yidhahdaa back end. marka labadooda la isku daran waxaa la yidhahdaa qofkaas waxa weeye wuxuu yaqaanaa full stack ama qofkaas waxaa la oran karaa waa web developer. full stack waxaa kaloo qofka la oran karaa qofkaas waxa weeyaan waa software engineer. haddaa maqashidna waa full stack weeyaan. yani waa qof yani website-kii frontiga wajahaddana dhisi karaya, back endiga xagga dambana dhisi karaya weeyaan. wajahadda maxaa laga wadaa ardayo? waad baran doontaa waxaas marka hadda website-ka sahal software.com hadda uu kor yaallo facekan wajahaddan waxa kuu muuqanaya cidda samaysay ayaa waxaa la yidhahdaa yani front end wajahadda yaqaanaan. yani website kasta wuxuu leeyahay wajahad buu leeyahay cidda samaysay frontiga. back endigana waa gudaha xagga dambe waxa dhacaya ama database ka dhacaya cidda samaysay ayaa loo yaqaanaa back end. marka labadaasa ardayow loo qeybiyaa front iyo back end. waayahay arday website waxyaabaha kale ee aad ka baran karto sahal software waxaa ka mid ah luqadda ingiliishka oo iyadana aan ku leeyahay ardayow sahal software aad ka baran karaysaa waqtigaagana ka faa'iidayso. luqadda ingiliishka waxay furo u tahay yani wax kasta. haddaad hadda IT-gan rabaa inaan barto, teknolojiyaddan rabaa inaan barto, codingkan rabaa inaan barto, luqadda ingiliishkana aadan isku ficnayn waad baran kartaa wixii laakiin waqti dheer ayay kaa qaadanaysaa. waayo haddaad ingiliishka taqaanid youtube-ka wax yaraad ku qorto ayaad wax kasta ka helaysaa ama google ka qortid ayaad caawinkas ciladeer baa ku qabsatay. ciladahan dad badan bay soo mareen. haddaad ingiliishka google ku qortid markii waxaad helaysaa kumanaan qof oo ka hadlaya xalkii baad arkaysaa. laakiin haddaan ingiliish garanayn way adagta ciladii inaad xelisid inaad keligaa maskaxaada dhalaalisid oo tuushisaa u baahanaysaa. marka waqti badan uu kaa lumo. marka luqadda ingiliishka waad ka baran kartaa sahal software adoo guriga joogaad baran kartaa. waana xirfad iskeed loo barto ingiliishka laftigiisu. waxaa kaloo ardayda aan barnaa xirfadda loo yaqaano forex trading oo ah iyada laftigoodu suuqa adduunka ugu weyn ee maanta laga shaqaysto. waa xirfad la barto weeyaan. weliba forexka waxaan u samaynay ardayda inuu ardaygu level 1 ka bilaabo ilaa iyo inuu level 7 maro. 7 level waxbarashaan u diyaarinay forexka. level 8 ayuu ardaygu ku qalin jabiyaa ay ku nastaan ardaydu. waad baran kartaa waana suuqa adduunka ugu weyn ee maanta lagu shaqaysto weeyaan. haddaad suuqan barato 7 level maratid oo forex trading baratidna
suuqa loo yaqaan cryptocurrency-ga xitaa wuu ku fududaanayaa inaad ka shaqaysatid oo caqabado badan kala kulmaysa waayo wax badan oo iska shabahayaan sida trainingkan oo kale iyo sida falanqaynta oo kale way iskeenayaan marka suuqan isagoo dhammaystiran casharadiisa isagana waan diyaarinay oo waad ka faa'iidaysan karaysaa كورس ugu dambeeya ardayo ay website-ka sahal software ka baran karto waa course loo yaqaano affiliate marketing affiliate marketing oo ah in suuqin la sameeyo casri ah ama digital marketing wax la yiraahdo oo wixii hadda aan ka hadlay haddaad xirfad ka mid taqaanid oo aan affiliate marketing ka aadan aqoon see wixii u suuqa u keenaysa sidoo kale company badan baa waxay dananayaanba affiliate marketing cid suuqin u samaysa danaynaya suuqin cusub danaynaysa marka waa xirfad iyana affiliate marketing aad iyo aad loo jecel yahay weeyaan affiliate marketing marka iyana waad ka shaqaysan kartaa haddii aad u baahan tahay ardayo markaa intaasoo xirfadood ayaad waxaad ka baran kartaa website-keena sahalsoftware.com adigoo gurigaaga jooga haddaa intaa ila fahantay tiri soo qor oo conceptiga guud aad fahantay saddex isoo qor insha allah waa mahadsantiin intaasaan muuqaalkeena caawa kusoo koobayaa si uusan daqiiqaduhu muuqaalku aysan idinku dheeraan qof kasta oo markaa su-aal qaba haddaad zoom ku jirtid chance ad u haysataa zoomka waan kula joogaa chatka zoomka kusoo qor haddaad muuqaalkan youtube-ka ama facebookka daawanaysidna lambaradeenna ku qoran ayaad nala soo xiriiri karaysaa haddaad u baahan tahay faahfaahin dheeriya si lagaaga siiyo kooras kasta inta qaybood u kala baxo iyo sidaa u baran karaysidba muhiimaddu waxa weeyaan ardayow waxaan ku dadaalnaa qofku inuu wax barto oo shaqaysto xooggana waxaan saarnaa weliba ardayga aan wax barno inaan la raadino xirfado shaqo oo ku shaqaysan karo soo gurigiis jooga waa ardayga systemka waxbarasho soo raaca ayaan kula dadaalnaa in aan la raadino shaqo reer ardayda inta badan ay gaaraan inay iyagu kala doordoortaan oo dhahaan macallin shaqadaas ma rabo ama mushaharkeeda yar ama taa ma rabo waqtigeeda badan ayay gaaraan oo iyagu kala doordoortaan bay gaaraan qaarkoodna iyagaaba dee shaqo abuurto waxaan ka hadlaya waa xirfado qofka hadduu barto iski shaqo u abuuran karo iyagaaba shaqo samaystaba oo inta badan qaarkoodna shaqo iyaga samaystaa muhiimadda laakiin meesha las dheeraya waxa weeyaan dadku inta badan waxay ka hornayaan shaqa ma taalo shaqa ma jirto laakiin xaqiiqada taama xaqiiqada waxaan leenahay shaqa way jirtaa laakiin waxaa yar xirfadii ayaa yar dadka xirfadda iska leh ayaa yar skill xirfadda ayaa yar marka xirfadda aad taqaanidna laftigeeda waxaad kale u baahan tahay qodob kale u baahan xirfaddii waa taqaanaa laakiin maxaa u baahan tahay labo cid xirfaddii inaad taqaana kaa akhrisata yacni cid yacni ku sheegta oo tiraada qofka xirfaddii wuu yaqaanaa baad u baahantay tusaalahaan company aad u tagtid oo kale ood volunteer xitaa kula shaqaysa u baahan tahay oo kadibna dadka u sheega inaad xirfaddii tahay ama warqad kuu qori karaya cala aqal marka maxaa u baahan tahay kow inaad xirfaddii barato laba maxaa u baahan tahay in xirfaddii aad ku shaqaysid xitaa volunteer ku shaqada aad doontid skill soo bandhig kadibna waa hadal la'aan inaad shaqo ku helaysid inta badan weeyaan arday kasta oo sahal software wax ka bartay haddeerto muuqaalkayga dhegeysanaya ama youtube ka daawanaya oo xirfadahan kuu sheegay soo bartay waddada soo raacay oo shaqalaan haysana aniga luuqa hay ka soo qabtay yirahdo macallin waxa weye shaqalaan baa haysa waxana waan soo bartay hay soo yirahdo insha allah wararkaas macadi mise macada chatka igu soo qor warkaas macadi soo ballanqaad kale kuma siin xilligan yacni arday kasta oo sahal software wax ka bartay oo xirfadaha aan kuu sheegay bartay oo maanta ilaa shaqalaan baa haysa aniga luuqa hay kala soo hadlo ya aniga farta meel kugu fiiqi doona hadii farta kugu insha allah farta kugu fadhi lahayd marka luuqa uu naga soo qabo laakiin muhiimadda ballankeena waa maxay waa inaad wax barato weeyaan waa inaad wax barato waxbarashada xoogga saarto number one waa inaad wax barato taas baa muhiima haddaad wax barato waxaa weeye shaqa la'aan baa haysa warkaas war la aqbali kara ma fahamti guul baan idin rajeynaya intaasaan kusoo ururinayaa chance waxaan siin doonaa walaalaha zoom ku jira asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu